Francisca isagu maxay tahay danta uu ka leeyahay Francisco wuxuu rabaa Liibiya inuu 3 meelood ka dego kow waa aaga la yiraahdo Fasaan oo hoostaga magaalada Sabha la yiraahdo aagaasna waa aagii uu ka guuleysan jiray Liibiya markuu haysan jiray iyo magaalada istiraatiijiga ee Sirta oo ay ku yaalaan inta badan dekedaha laga dhoofiyo gaaska Liibiya ceelasha shidaalkuna ku dhow yihiin iyo saldhigga la yiraahdo Al-Jufra oo hadda Ruushku gacanta ku hayo wuxuu rabaa in uu Francisco gaaskaas haysto oo weligii uu xukumo una xado ka dhaco khayraadka Liibiya shacabka Liibiya khayraadkooda uu daldashado ninkan Haftarna wuxuu haystaa nin camiil ah oo u hoggaansamaya oo daraha Francisco fulinaya dawladahaas faraha badan Haftar oo heshiisyada la galay dawlad walba danteeda dawladda kale danteeda ka hor imaanaya ama ka soo horjeeda laakiin xaaladda Liibiya waxay ku dhamaan doonto waan arkaynaa maalmaha soo socda iyadoo ay tahay dalka Liibiya waxa dawladda Liibiya u soo gurmaday dawladda Turkiga waxayna dawladda Liibiya soo ceshatay galbeedka Liibiya oo dhan hadeertana waxay rabtaa inay gacanta ku dhigto magaalada Sirta iyo saldhigga Al-Jufra iyo aaga shidaalka laga dhoofiyo ama aaga ay dekedu ku yaalaan oo aagaas loo yaqaan منطقة الهرام aagaas inuu hadii ay dawladda Liibiya gacanteeda ku dhigto waxa meeshaas ka baxaya rajadii laga qabay Haftar waxaan u suura galaysa dawladda Liibiya inay u dhaqaaqdo ama si fudud ay gacanta ugu dhigto magaalooyinka dhaca bariga Liibiya laakiin duulaankaas ay dawladda Liibiya ay ku doonayso inay ku qabsato Sirta iyo Al-Jufra dawlado fara badan ayaa isu bahaystay dawladahaas waxa kamid ah Masar Ruushka Faransiiska iyo Imaaraadka Carabta waxay rabaan inay ka hortagaan duulaankaas ayna badbaadiyaan Haftar si mashaariicdii ay ka rabeen dalka Liibiya uu dib u soo noqdo laakiin waxaan leenahay isha ayaan ku haynaynaa maalmaha soo socdana waan arki doonaa xaaladda Liibiya meesha ay ku dhamaato sida ay noqoto iyo cidda guuleysata haddii magaalada Sirta ay u suurtoobi weydo dawladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay iyo dawladda Turkiga ee taageeraysa waxa ku macnaynaynaa Haftar rajab leeyahay uuna sii jiraya wali haddii magaaladaas ay gacanta ku dhigto dawladda Liibiya iyo dawladda Turkiga iyo saldhigga Al-Jufra oo lagu daray waxa meesha ka baxaysa rajadii laga qabay ninka odaga ah ee la yiraahdo Haftar iyo dawladihii taageerayay oo ku dhici doonto niyad jab iyo qalbi jab